الشباب الكتاية الشباب المداش ومكادا عطا الشباب المداش ومكادا عطا الشباب المداش ومكادا عطا الشباب المداش ومكادا ciidanka New Booliska ayaa gacanta ku soo dhigay ku dhawaad 50 ka mid ah dagaalamayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab oo deegaanka Soomaali galbeed soo weeraray. Taliska ciidanka New Booliska ayaa sheegay in dadkani loo dhaadhiciyay xabsiyada isla markaana kuwa dhaawacyadina la daaweyn doono sida hadalka ay u dhigeen. Weli waxaa dagaal goos ah u dhaxeeya ciidanka New Booliska iyo Al-Shabaab ka socda deegaano ka mid ah dhulka Soomaali galbeed. dagaalkani ayaa ka dambeeyay kadib markii Al-Shabaab oo wata gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan ay weerareen deegaano ku yaala dowlad deegaanka. waxaa dagaaladani ka dhashay dhimasho in ka badan 100 ruux, tiro ka badan ay ku dhaawacmeen. saraakiil ka tirsan ciidanka New Booliska ayaa sheegay in ay ku hareeraysan yihiin hulul oo hoostaga degmada Hargeysa ee gobolka Afdheer, halkaasi oo ay ku sugan yihiin xubno ka mid ah ururka Al-Shabaab. To be here with you and share with you how Somalia is willing and eager to serve. Somalia belongs to East Africa. There is no one country among the 7 countries sitting here that madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qayb galay xiritaanka shir madaxeedka dalalka ku mideysan dowladda bulshada bariga Afrika oo ay martigelisay magaalada Arusha ee dalka Tanzania, iyadoo madaxda dalalkani maanta ka doodi doonaan codsiga rasmiga ah ee dowladda Soomaaliya ay ku doonayso ka mid noqoshada daladani. madaxweynaha oo kulan duceed qaatay madaxda ka soo qayb galay shirkani ayaa xoojiyay ololaha ansixinta codsiga dowladda Soomaaliya, isagoo soo bandhigay fursadaha dhaqaale iyo bulsho imaamsan yihiin shacabka Soomaaliyeed doorka xoog leh ay ka qaadi karaan horumarinta daladda iyo saameynta ay ku leeyihiin gobolka. sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu mahadceliyay madaxda dalalka bulshada bariga Afrika fursad ay u siiyeen si xoojinta codsiga dowladda Soomaaliya u aadan ka mid noqoshada daladda. waxa uu ku amaanay shacabka iyo dowladda Jamhuuriyadda Tanzania soo dhaweynta iyo martigelinta wanaagsan ee ay ku qaabileen isaga iyo wafdigiisa. fadlan haddaan ugu cusubtaan ugu soo biir like inoo saar, saaxiibadana la wadaag, YouTube-kana subscribe inoo saar, like inoo saar, noo soo share garay, saaxiibadana la wadaag si aan u helno saaxiibo adigoo kale ah dhiirigelina noo noqoto. mahadsanid.